bismillaahi raxmaani raxiim soo dhowaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan maracad show waa 12 bisha abriil sanadka 2026 maalin axada qaybtan waxaan kugula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee soo kordhay eedaha tirabeelka loo jeedinayo dowladda Iiraan dhanka koonfurta iyo bariga Lubnaan oo weli duqeymo ay ka dhacayaan macluumaadii ugu dambeeyay ayaan eegi doonaa iyo sida baraha bulshada ee Israel iyo Turkida si weyn loogu falanqeynayo hadaladii adkaa ee saacadii ugu dambeeyay isku weerareen mas'uuliyiinta Israel iyo Turkiga dagaal kale ayaa halkaasi ka bilowday waana maxay waxyaabaha hadda ku soo beegay in xaaladdu sidaas loo adkeeyo soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka Marwa Fertility Center waxaad ka helaysaa daweynta xanuunada keena dhalmala'aanta ragga iyo dumarka ku dooro baaritaan la hubo daweyn iyo beerista ubadka IVF oo la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqdo mahadsanid marka la isku soo noqdo wanaagsan waxaan ku hormarayaa macluumaadka Xamaas iyo sidoo kale magaalada Qaahira oo dalka Masar ah sida ila wareedo ka tirsan xoogagga caabinta ee Xamaas laga soo xigtay wafdiga wada hadallada ku matalaya xoogagga caabinta ayaa lagu waramayaa maanta oo axada in magaalada Qaahira ay kula kulmayaan mas'uuliyiinta dawladda Masar iyagoo kala hadlaya dawladda Masar heshiiska xabajoojinta ee Israel ay sida weyn uga xadgudbayso tan iyo markii heshiiska la gaaray bishii Oktoobar ee sanadkii la soo dhaafay Khaliil Al-Haya oo wada hadallada ku matalaya xoogagga caabinta ee Xamaas ayaa gaaray magaalada Qaahira oo dalka Masar ah waxaana uu la kulmay taliyaha hay'adda sirdoonka ee dawladda Masar sidoo kale waxa la sheegay mas'uuliyiinta ugu sareeya dawladda Masar inuu maanta la kulmayo si Israel loogala xisaabtamo jibinta heshiiskii la gaaray 10 Oktoobar sanadkii ina dhaafay mas'uuliyiintan ayaa waxay wakaalada wararka AFP u sheegeen in wafdiga maalintii shalay ay tageen magaalada Qaahira kulankoodii ugu horeeyana diiradda lagu saaray doorka dawladda Masar ee ka ciyaari karto sidii loo dhaqangelin lahaa heshiisyadii gudaha dalkaasi lagu gaaray isla markaana xoogagga caabintu ay ugu qasbi lahaayeen dawladda Masar sidii looga shaqeyn lahaa joojinta xadgudubyada ee xadaafka ah ee Israel iyo duqeynta goobaha dadka rayidka ay ku sugan yihiin magaalada Gaza waxa maalmihii ugu dambeeyay ka soconayay duqeynta ee diyaaradaha dagaalka Israel ay fulinayaan tani markii heshiiska xabajoojinta la gaarayna 748 ruux oo Falastiiniyiin ah ayaa wasaaradda caafimaadka ee marinka Gaza ay sheegtay inay ku geeriyoodeen duqeymaha diyaaradaha dagaalka Israel ay fulinayaan inta ugu badanna duqeyntaasi waxay ka dhacday xeryaha dadka shacabka ay degan yihiin ee ku yaala koonfurta bartamaha iyo waqooyiga magaalada Gaza dhinaca iyo Mareykanka hadii aan eegnana wargeyska New York Times waxa uu leeyahay tallaabada xigta ee la qaadayo waqti xaadirkan waa mid qusaysa madaxweyne Donald Trump maadaama wada hadaladii magaalada Islamabad lagu kala tagay iyadoo aan heshiis la gaarin madaxweyne Trump waxa uu tagi doonaa magaalada Florida maadaama inta ugu badan dhamaadka toddobaadka halkaas uu ku qaato walow halkaas uu tagayo haddana wargeysku waxa uu leeyahay madaxweynaha isaga ay hortaala tallaabada xigta uu qaadanayo iyadoo madaxweyne ku-xigeenkiisa uu ka soo laabtay magaalada Islamabad iyadoo wax heshiis aan la gaarin mas'uuliyiinta dawladda Iiraanna dhankooda waxa ay sheegeen inay sii luminayaan kalsoonidii Mareykanka ay ku qabeen marka laga hadlayo dhanka wada hadallada dhanka Lubnaan markaad eegto waxa soconaya duqeymaha diyaaradaha dagaalka Israel ee halkaas ay wali ay ka fulinayaan waxa wararka qaar ay soo baxaya ay sheegayaan in maanta la beegsaday dhowr xarumood oo ku yaala gudaha dalkaasi Lubnaan duqeynta ugu badanna waxay ku dhacaysay deegaanada koonfurta ah iyadoo Israel ay taagan tahay waan sii wadi doonaa dagaalka ayaa haddana mas'uuliin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka waxay sheegeen inay kulamo kala duwan ay la yeelanayaan mas'uuliyiinta Israel iyo Lubnaan toddobaadka soo socda iyadoo laga wada hadli doono sidii heshiis loo gaari lahaa waatii aan shalay idin la wadaagnay in markii ugu horeysay wada hadal toos ay yeesheen Israel iyo Lubnaan xiriirkaasi tooskana waxaa ka dhashay in wada hadal ay wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka garwadeen ay ka tahay in la qabto si iyaga ay isu fahmaan waana waxa ay diidanay dawladda Iiraan oo faylkaas ma aysan doonaynin si toos ah in Lubnaan iyo Israel ay kaga wada hadlaan
wafdiga dowladda Iiraan ayaa isaga soo laabtay magaalada Islaamabad kadib markii wadahadaladii ugu dambeeyay ay fashilmeen. Waxa la isweydiinayaa tallaabada xigta ma dib ayaa la isugu soo laaban doonaa mise xaaladdu waxay noqon doontaa mar kale in waqtiga oo kaliya la iibsanayay wax la isku dabaridayay dagaalkana ma dib ayaa loogu laaban doonaa. waa su'aalaha la isweydiinayo. waan arki doonaa wax walba arrimahan ka soo kordha barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagayaa insha Allah. warbixin ka soo baxday ila ka tirsan dowladda Mareykanka iyo sidoo kale hay'adaha amniga ayaa mar kale waxa diiradda lagu saaray macluumaadka ku saabsan dowladda Shiinaha inay gantaalo ay u dirayso gudaha dalka Iiraan iyo suuragalnimada kiimikooyin loo isticmaali karayo warshadaha militariga. warbixin lagu daabacay wargeyska New York Times ayaa mar kale waxa diiradda lagu saaray in Shiinaha uu doonayo inuu gantaalada nooca Manbadis la yiraahdo oo u diro gudaha dalka Iiraan. toddobaadyadii la soo dhaafay waxa la sheegay sidaas oo kale isla gantaaladan oo garbaha laga tuuro in ay u direen gudaha dalkaasi Iiraan si loogu taageero dagaalka ay kula jirto Israel iyo sidoo kale Mareykanka. lama sheegin halka gantaaladaasi la marsiiyay iyadoo dagaal uu socdo, laakiin waxa soo baxaya tuhun ah in Turkmenistan iyo dalal kale laga gudbiyo hub la geeyay gudaha dalka Iiraan iyadoo gargaar ama mucaawino lagu qarinayo. mas-uuliyiinta dowladda Mareykanka ayaa dhankooda waxay sheegeen inay baaritaano rasmi ay wadaan si loo xaqiijiyo macluumaadka muujinaya in gantaaladan la adeegsaday intii lagu guda jiray dagaalkii socday muddada 41 maalin. warbixintu waxa kale oo ay tilmaamaysaa in gudaha Beijing sidoo kale ay ka socoto dood ku saabsan suuragalnimada in gantaaladan iyo kuwo kale loo diray gudaha dalkaasi Iiraan, taasoo muujinaysa sida uu dagaalkan muhiim ugu yahay dalka Shiinaha dhinaca istiraatiijiyadda caalamiga marka laga eego. waa sida ay warbixinada u dhigayaan warbaahinta reer galbeedka. waxa intaas sii dheer hay'adaha sirdoonka ee dowladda Mareykanka waxay sheegeen inay qiyaasayaan in Shiinuhu uu si dadban uga qayb qaadanayo dagaalka, iyaga oo ogolaaday sida la sheegay shirkado laga leeyahay dalka Shiinaha in ay Iiraan ay u diraan 1 kiimikooyin loo isticmaalo warshadaha militariga, 2 shidaal gaar ahaan shidaalka loogu talagalay gantaalada in loo adeegsado, iyo qayb lagu farsameeyo hubka iyo qalabka military. waa eedeynta ugu culus oo Shiinaha loo jeedinayo tan iyo dagaalka markii uu idlaaday. gantaalada nooca Manbadis loo yaqaano waa hub khatar ah oo diyaaradaha jooga hoose ku duula ee droniska, helikobtarada iyo diyaaradaha qaarkood lagu beegsan karayo. xogtu markaa haddii ay xaqiiqo ay noqoto waa isbedel weyn oo istiraatiiji ah. Shiinahana dhinaca kale dagaal adag ayuuba kula jiraa dowladda Mareykanka isagoo kaga argudanaya Taiwan iyo sida loo hubeeyay, maadaama Taiwan ay sheegato inta badan in Shiinaha intiisa kale ay mar hore ay ka go'een. Shiinahana uu taagan yahay waa dhul weyn oo ka tirsan dalka Shiinaha. maxay kula tahay adiga qaybta aragtidaada ku reeb? waad mahadsantahay. dhinaca kale dowladaha Ruushka iyo Ukraine ayaa eedeyn isu jeedinaya gaar ahaan xadgudubka ku saabsan xabajoojin kumeel gaara iyadoo ciida ay u yaqaanaan Easterka loo dabaaldegayo oo labada dhinacba ay doonayeen in xabadda ay joojiyaan inta dabaaldegyadaasi ay socdaan. labada dhinac hadda waxay taagan yihiin midba midka kale ayaa ka dambeeyay jibinta heshiiskii xabajoojinta kumeel gaarka ahayd. wax walba oo ka soo kordha arrimahan waan kula wadaagi doonaa insha Allah. waxaa sii xoogaysanaya xiisadda qabsatay baraha bulshada ee Turkida iyo Israel kadib markii saacadihii ugu dambeeyay mas-uuliyiinta labada dhinac aad moodo eedo culus inay isu jeediyeen. ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa ku eedeeyay madaxweyne Erdogan inuu taageero argagixiso isla markaana xasuuq uu ku hayo Kurdiyiinta. waa tallaabo la doonayo Kurdiyiinta in lagu kiciyo. sidoo kale wasiirka gaashaandhigga Israel ayaa dhankiisa ku eedeeyay madaxweyne Erdogan inuu ka tirsan yahay Ikhwaanul Muslimiin ururka loo yaqaano, isla markaana uu yahay wuxuu yiri shabeel warqad ah. micnuhu waa hogaamiye aan awood dhab lahayn. dowladda Turkigana arrintan way ka jawaabtay markaa iyadoo maamulka Israel ku tilmaamay dambiilayaal iyo koox inta badan xasuuq u geysta dadka shacabka ah, halka Netanyahuna lagu tilmaamay Hitlerka waqtigan. labada dhinac markaa maadaama warkaas ay soo saareen warbaahintii iyo baraha bulshada ayaa dagaal aan caadi ahayn uu ka socdaa Twitterka. sida la isugu galaya haddii aad aragto waad yaabaysaa labada dhinac. ra'iisul wasaare Netanyahu waxaa shir uu kaga hadlayay wuxuu ugu yeeray dhidibka sharta ee Israel ay la dagaalamayso uu qabtay xilli hore, waxaana uu ku tilmaamay dhidibkaas inay yihiin Suuriya, Yemen, Iiraan iyo meelo kale. dagaalkooda dhanka warbaahinta ma ahan wax hadda soo bilowday. labada dhinacna ilaa iminka wax rasaas iskuma ridin. aflagaadada, falcelinta, hadallada adag, weerarka dhanka warbaahinta waa kuwa joogto ah,
oo ilaa wasiirka amniga gudaha Itamin bin Gavir iyo xubno kale ayaaba eedeyn u jeediyey madaxweynaha dowladda Turkiga mararka qaarkiina erayo adag ayayba adeegsanayeen. laakiin Netanyahu si toos ayuu markaan ugu soo biiray arrinta isagoo madaxweyne Trump ku eedeeyay inuu taageero wuxuu ugu yeeray nidaamyo argagixiso ah isla markaana Israel la dagaalamayso Iran halka Erdogan uu xasuuq u geysanayo Kurdiyiinta ku nool gudaha dalkiisa. Turkiga arrintaas uu ka jawaabay waxaana ay ku eedeeyeen Israel inay galayso dambiyo dagaal Netanyahuna uu yahay Hitler-ka waqti xaadirkan. inta kadib wasiirka gaashaandhigga ee Israel ayaa weerar ku qaaday Erdogan isagoo Erdogan ku eedeeyay inuu iqwaanul muslimiin ka tirsan yahay xasuuqna uu ku hayo Kurdiyiinta. warbaahinta Turkiga dhankeeda si weyn ayay u weerartay Israel waxaana jirta cara aad u xoogan oo ka dhalatay hadalladan Turkidana marka Twitter-ka la joogo sida u adeegsanayaan ma malayn kartid waliba saacadii ugu dambeeyay hees waxa jirta Soomaalida ay qaadeen kooxda Hidda inay taan u malaynaya waliba oo ay kaga hadlayeen garab istaaga Turkiga iyo erayo noocaas ah xilligii aad ka garab istaagteen ilaa iminka waqti hore erayada sidaas ay ahaayeen oo u malaynaya in isbitaal loo qaaday waliba heesta aniga waxaan islahaa shidaalka iyo meelaha ayaa loo qaaday erayadii iyo siday u qaateen iyo sida Twitter-ka uga falcelinaya markaad eegto mararka qaarkii waxaad isleedahay war maxaa heestan loo qaaday xitaa abwaanku muxuu uga fiirsan waayey sida la isu bahdilayay marka Twitter-ka arrimahaas aad bay Turkida ugu dheereeyaan iyo ololaha iyo waxa narrative-ka abuuraya inta badan xubnaha dawladda taageersan. marka waxaan ku keenay sheekada ah dagaalka Turkida ee dhanka Twitter-ka ka socda hadii aad aragto waad yaabaysaa. marka buuqiyo hadda uu sii socdaa iska horimaadka dhanka warbaahinta aad buu u kordhiyay laakiin ilaa iminka si toos ah uma aysan dagaalamin dhinacyadan laakiin aflagaadada erayada adag ee la adeegsanayo waxay noqdeen kuwa iska caadi ah. qoraalada qaar ayaa si weyn u baahay si weyn looga falcelinaya markaad eegto sida la isugu jawaabayo si gaar ahaan sida ay Turkida ugu jawaabayaan madaxda ugu sareeya Israel. waxaa kaloo la sheegay in laga yaabo in bartilmaameedka xigaha kadib Iran inuu noqon karayo Turkiga kadibna Pakistan kadibna Masar Qatar Sacuudiga sidaas ayaa warbaahinada qaar xitaa ay tilmaamayaan oo aad loo falanqeynayo iyadoo aad moodo si tartiib ah in dawladihii islaamka inta iyaga isku mashquulsanaayeen laga faa'iideysanayo. qoraalka waxaa sidoo kale lagu eedeeyay ra'iisul wasaare Netanyahu inuusan nabadda ka shaqeynin cadaaladda uusan ka shaqeynin wadaxaajoodiyada iyo heshiisyada la galana uusan ka dhabaynin maadaama lagu tilmaamay inuu yahay nidaam gumaysi oo leh qorshayaal ballaaran oo ku wajahan dalalka islaamka iyo guud ahaan carabta. marka waan arki doonaa wax walba arrimahan ka soo kordha barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagayaa insha Allah. dhinaca kalena Xisbullah ayaa beeniyay macluumaadka ku saabsan inay xiriir la leeyihiin unug la sheegay inuu qorsheynayay inuu weeraro uu ka geysto gudaha magaalada Dimashq oo caasimadda dalka Suuriya ah. ururka ayaa lagu eedeeyay inay qorsheynayeen inay beegsadaan xubno sarsare oo wadaadda ah oo ku sugan gudaha dalkaasi Syria. dhinaca kalena waxaa aad warbaahintu ay u falanqeynaysaa sida ay Israa'iiliyiinta ay dadka shacabka ah ee reer Gaza ugu adeegsan jireen inay gabaad ay ka dhigtaan xilliyada sida weyn loogu dagaalamayay gudaha marinka Gaza. waliba qaarkood iyaga ayaa isku eedeeyay halka muuqaalada qaarna ay warbaahinta ay ka saareen waxaa la arkayay iyagoo dadka shacabka ah gabaad ka dhiganaya una adeegsanaya sidii ay kaga dhuuman lahaayeen weerar kasta oo kaga imaanaya dhanka iyo xoogaga iska caabinta ee Hamas. qaybaha ugu dambeeya hadii aan eegnana senator lagu magacaabo Andy Kim oo ka tirsan sanadka Mareykanka ayaa sheegay in uu ka niyad jabay wafdiga madaxweyne Trump uu u diray inay ku matalaan wada hadaladii fashilmay ee magaalada Islamabad. wuxuu si gaar ahaaneed u dhaliilay madaxweyne ku-xigeenka waxaana uu yiri Mareykanku wuxuu u baahan yahay wada hadallo dhab ah mana ahan kuwa muuqaal iyo sidoo kale bandhig oo kaliya ah. ma wuxuu madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka u maleynayay inuu hal maalin ku xallin karayo khilaaf soo socday 10 sano oo Iran iyo sidoo kale Mareykanka u dhaxeeyay ayuu yiri. waxaa intaas uu ku daray in madaxweyne Vance uu doonayo in wada hadalladu hal maalin ay ku idlaadaan halka uu 5 maalmood oo buuxa uu ku qaatay bishii February ka qaybgalka ciyaaraha Olombikada ee jiilaalka buu yiri. ciyaaro buu 5 maalin ka qaybgalay 10 sano dad soo dagaalamayna wuxuu doonayaa buu yiri in hal maalin oo kaliya lagu xalliyo heshiiskana lagu gaaro. taasina suuragal ma ahan waana in xubno aan doonaynin bandhige loo diraa xubno si rasmi ay kaga go'an tahay inay wada hadallada ay ku matalaan buu yiri dawladda Mareykanka. maxay kula tahay adiga qaybtoo aragtidaada ku reeb like saar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada waad mahadsan tahay. falanqayntii guud ahaan ee qaybtan waan inta mid lamid intaan ku kulmi doona nabadgelyo. Marwa Fertility Center waxaad ka helaysaa daweynta xanuunada keena dhalmo la'aanta ragga iyo dumarka
ku dooro baaritaan la hubo daweyn iyo beerista ubadka IVF oo la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqdo mahadsanid